Because when you say Bismillah, Allah is with you and put barakah in all what you do. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah. عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تشرفت لي كسو دوادا رمالا كوكين channel waxaa idin leeyahay maalin wanaagsan haween wanaagsan galab wanaagsan intaba hadba meesha joogtaan maanta waxaa rabaa inaan idin la wadaago bataati aan rusta garaynayo waa dubayaa insha Allah korkuma dubaya laakiin ofinka gelinayaa iyo fish aan asagana aan la dubi doono insha Allah waxaan rabaa inaan ku daro halka waxaa igu jiro sanjabiil shiidan iyo toon shiidan halka waxaa ku haystayaa olive oil waxaa kaloo ku darayaa filfil waxaa kaloo ku darayaa in yaro maraq digaag in yaro oo ah isheeg bahalkii paprika shiidan barbarooni shiidan ah hadduu rabbi raali ka noqdo intaasaa baradhada ku darayaa in lamid ahna waxaan ku darayaa fishka waxaa idin leeyahay walaalayaal soo dhawaada haddii goor ha ismartiyeenina marka channelku waa channelkeeni like share subscribe kana insha Allah lagu dadaalo waa walaashiina ramaalo oo idin leh welcome to my channel walba waxaan diyaar idin la ahay resepti cusub oo wanaagsan oo ka heli doontaan insha Allah commentigana waxaad ku dhaafi kartaan waxa jeceshihiin oo isleedihiin yani walaashiin way idin sameynaysaa ama aad ka heshaan aad rabtaan inaad reputation sameysaan xataa yaa way ila socodsiin kartiin insha Allah marka walaalayaal kusoo dhawaada channelkeygii waa ka maraq maaji kama badinayo baradhada maxaa la dhahayaa cusbo badan ma qaado cusbada durbidiib way soo tuftaa يعني مقارنة عصبة بدن وحان كلا قدرينا هذا فلفل إنكستو هل كان عن ربي إن عن سكوة وقصو وإلا بي لكن وحان سمينا يا سليد أيام قصها إن شاء الله تاي سليد القدرة هذه إلى إيه لبا سدح قادو بس إنه وحا أباهنا هيا إنه ماركتها يا ورست نقضو دبمبه هكا إن شاء الله waxaan hadda haatan ku darasanaynaa filfil madow ama filfil cadaan whatever haysatid filfisha way macaanaysaa cunada halkaana ku daraya adi waa qiyaasayaa insha Allah waxaa ku daray qaadada yar wax la eg oo kala ku daray waxaa kala ku darayaa toon iyo sanjabiil olive oil iyo filfil iyo maraq digaag way soo maahan waxaa kala ku darayaa paprika shiidan bahashan aad ayaan u isticmaalaa intada way macaanaysaa waa paprika shiidan meel walba ku darsan kartaa laakiin Soomaalidu waxay ugu talagaleen maxaa la dhahayaa in lagu darsado baastada suugada saas ma ugu jecli laakiin meelaha kale waxyaabaha aan duwayo dhan ma aragtay waa ku darsadaa aad u macaaneeyaa runtii waxaa kaloo jira halkan horta maraq digaag waa ku shubay kaasna inaan gaar ugu shubay naqanay because inta ku dari karo already hadii ka fishka maxaa la dhahay baradhada ma ku dari karo dhanaan iyo naqanaya isku qasaya saxankeena waa inoo diyaar ofinkeena waa inoo diyaar waa ka rabaa inuu maaragtaya
insha allah. Kani diyaar way. Haata waxa aan marsaneynaa fishki aan diyaarsaneynaa. Fishka ma aan ku darin bahaladii maraq digaag ma ku darin cusbo malaha. Ani cusbada meeshaan isticmaalaa badankiisa waxaan isticmaalaa digaagka isticmaalaa cusbada saas uma jecli inta badan ma isticmaalo. haatana waxaa marinayaa in yar loo baahan yahay fishka xataa cusbo badan ma qaato inkastoo paprika odag xataa uu ku jiro ma garataya cusbu leeyahay iyo xabaaji kale ku jiro asaga naftirkiisa ma ahan barbarooni kaliya shiidan soo taagan ma aha waxba ku jiro marka daas waayo dhadhan u yeelanaya. haatana fishkeeni waa inoo diyaar insha allah. waxaa kaloo sameynayaa baradhada ayaa aan hoos marinayaa fishkana koraa ka saaraya. ofinka waxaan geliyay 200 iyo maximum uu joogaa 250 ayuu joogaa. marka waxaan rabaa asagana inaan oo maaragtaya oo hadhowdito kala wax yar gaabna like hadii inuu waxaan rabaa inuu kululaado oo kul noqdo. kadibna wax yar waxaan geynayaa 220 oo kale 210 hoos u soo celinayaa ilaa ay 40 minutes uu ku jiro doona. marka sida oo socda balkan aad u macaan yahay caruurta meelahan lagu dhalina waa taqaanin bataati maahina iyo burger iyo pizza iyo wax kale shaqo kuma laha ma cunayaan. marka that's why waxaa idin leeyahay caruurta ma aragtaya waxay cunayaan ha loo sameeyo insha allah. iswa saxankeena ku ridaneynaa haata kan halka dhig kana halkan waxaa ku haystaa saxanka u gedin lahaa birtaan ayaa fishka saari doonaa insha allah. haata waxaa ku shubayaa baradhadii ku shubaa oo waxay dhan marsan inay ii dubantaan rabaa insha allah. waxyar waxaan ku kordhinayaa olive oil aan korka ka kordhinay. waxaa lagu daraa bersili ama kabsarta inta la jarjaro kabsar caleenta sida kalar u yara naqdo laakiin ani kuwii ma cunayaan oo maaragtaya hadiiba wax kale lagu dardaro waxay u arkaanba waxay ka arkeen una ee cunaan ilaahay amarkii. marka baradhadii waa taa halkeeda halkaas oo marayaa. waxaan sameynayaa bismillah halkaas saarayaa fistana hal mar isla wada kari doonaa hadduu rabbi raali ka noqdo. maashallah tabaarakallah walaalayaal saaxiibayaal hamoogaanina so most hadda Soomaali nahay waxaan cunaa hilib ari ani waa ka xumahay gurigeena saas looguma cuno. waa mar ii dhif ayaan karsanaa ama cunaa because ciyaalkeygii ma jecla hilib ariga waxay u qabaan inuu wax ka uraayo. marka marmar xiisa loo qabo mooye si kale looma cuno. marka hilib arigana sidiisaba faadu leeyahay saa la socotaan waa laga fiican yahay in everyday aad cuntid once a week aad gashatid mooye everyday in la cuno ma fiicna. haatan walaalayaal waxaan gelinayaa ofinka
ofinka soo saac ahay gelinaya ilaa uu ka karo waan isku soo noqonaynaa. Sharafta leh soo dhawaada mar labaad mar saddexaad mar afraad cunadii ofinka waan ka soo saaray. markii hore waxaan dhahay 250 ayaan u geynayaa ofinka because preheating in la sameeyo waaye. markuu heat garoowe aad u kululaaday ayaa maxaa la dhahayaa oo aan geliyay baradhada iyo fishka. kadib ayaan waxaan geeyay 230 sida ula socda 40 daqiiqo ku jiray. marka kadibna haatan waa diyaar waa ka soo saaray. maasha allah waa wax aad iyo aad u macaan ama healthy ah insha allah. kusoo dhawaada ayaa idin leeyahay. haatana waan guranaynaa hadduu rabbi raali ka noqdo sidaa ula socda. waan guranaynaa fishka waa kan. bismillah I hope inuusan ku dhegin oo ka foqo. so ku darsato dhinaca ka saari kartaa in yar qofkii in case u baahan oo rabo inuu dhadhanacsado. haddii aad u baahan tahayna ketchup sidoo kale dhinacaas ka saari kartaa. ma u baahnid inaad ku qastid. qofkii markaasayto u baahan yahay cusbo horta miiska la saaraa runtii. qofkii extra rabo waxaa kusoo haray basbaas. qofkii extra rabo isagana halkaas ka saaraysaa. inkastoo loogu talagalin cuntadan inkastoo Soomaalidana ay jecel yihiin inay basbaas ku cunaan saasa u saaraysaa. maxaa ku soo haray lemon haysataa. haddii aad isleedahay yaanyo iyo onion iyo aad basal iyo ku cunaysaa oo u baahan tahay fine. haddaa u baahnayna intaan kugu filan. waxaa kaloo jiro white sauce. maanta ma sameynin white sauce-ka maaragtay cheese iyo wax laga sameeyay. idana haddii aad isleedahay ama fish sauce wax la dhahayo jiro ka ayaa korka loogu shubtaa. laakiin dry-gan uu ku macaan yahay bahalka. tijaabi haddii aad ka heshaan like subscribe share kulliba insha allah. walaalaha waa xagiini ku dadaala. idin leeyahay haddii goorba kusoo dhawaada Ramaala Cooking Channel. waxaas diyaar idin la ahay waxyaabo idin cajabi doono. waxaas idinkaga tagi salaamta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Say God is the unique. I'm hungry, I wash my hair.